warbaahinta Mareykanka ayaa tabisay in dowladda Iran ay si kama u soo riday diyaaradda rakaabka ahayd ee laga lahaa dalkaasi Ukraine taasoo Arbacadii ku dhacday meel aan sidaas uga fogeyn magaalada Tehran isla markaasna ay ku dhintaan intii saarneed diyaaradda soo gaaraysay 176 qof. Saraakiisha Mareykanka ayaana sheegay in diyaaradda Ukraine International Airlines oo nooceedu ahaa Boeing 737-800 ay ku dhacday gantaal sida ay tabisay warbaahinta CBS. dowladda Ukraine ayaana goor sii horeysay sheegtay in ay baaritaan ku hayso sababtii ay ku dhacday diyaaradda iyo inuu soo riday gantaal iyo waliba in kale. hase ahaatee Iran ayaa meesha ka saartay suurtagalnimada in gantaal uu ku dhacay diyaaraddaasi. burburka diyaaradda rakaabka ah ayaa yimid saacadoon yar kadib markii ay Iran fulisay weerar gantaalo oo loo adeegsaday oo lagu qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ee ku yaal gudaha Ciraaq. warbaahinta ayaana soo xiganaysa saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa sheegtay in qalabka satellite-ka ee hawada uu qabtay cadeymo muujinaya in diyaaraddu gantaal ku dhacay. dhinaca kalena barnaamijka Newsweek oo ay soo xigtay saraakiil ka tirsan gaashaandhigga iyo sirdoonka Mareykanka iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan sirdoonka Ciraaq oo sheegaya in diyaaradda Ukraine uu haleelay gantaal lagu farsameeyay dalka Ruushka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaana Khamiistii sheegay inuu shaki ka qabay sababta diyaaraddaas u soo dhacday xilli ay sii xoogeysteen xiisadda u dhaxaysa Iran iyo Mareykanka oo ka dhashay dilkii loo geystay General Qasem Soleimani kaasoo lagu dilay gudaha dalkaasi Ciraaq. waxaana arrintan ilaa hadda ay dhalisay buuq iyo waliba xiisad cusub oo ka dhex taagnaato dowladaha Mareykanka iyo waliba Iran. arrintan ayaana ku soo aadaysay xilli gobolka iyo xiisadiisa ay kasii darayso taasoo keentay dilkii loo geystay General Qasem Soleimani. Iran ay qaado weeraro argusasho ah kuwaas ay ku qaadayso saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay gudaha dalkaasi Ciraaq waxayna gantaalo ku weerartay xarumo laba ah oo ay Mareykanku ku leeyahay isla gudaha dalkaasi Ciraaq.